kusoo dhawow platformka waxbarasho ee Tixi Technology oo aad wax uga baran kartid hab online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo. Muuqaalkeenan waxaan idinku tusi doonaa qaabka aad isku diiwaan gelinayso platformka waxbarasho ee tixi.com inagoo adeegsanayna mobile ama computer labadaba. Ugu horeyn waxaan ku horeyn doonaa computerka. Marka koowaad waxaan la soo bixi doonaa browserka iigu jira computerkayga Google Chrome. Waxaan aadi doonaa qaybta sare ee search barka ama URL-ka. Waxaan ku qori doonaa tixi.com. Hadda waxa ay soo baxay platformka tixi.com. Talaabada koowaad ee laga doonayo marka uu ii soo baxo platformku waxa weeyaan inaan sameeyo isdiiwaangelin ama login. Waxaan taaban doonaa amba aad taabanaysaa marka aad doonayso inaad isdiiwaan geliso bottomka xagga sare ee midigta kaaga muuqda ee ay ku qoran tahay login. Kadib waxaan ku dhufan doonaa login bottomka. Haddaba waxa kuu soo bixi doona laba option inaad ku geli kartid amba aad isku diiwaan gelin kartid platformka. Labada option oo kala ah inaad ku gashid Facebook account amba Gmail account. Haddaba waxaan ku horeyn doonaa ka Gmail-ka ah. Waxa laga doonayaa inaad lahaatid account Gmail ah oo aad gelinaysid username-ka aad ku isticmaalaysid iyo password-kiisaba. Haddaba waxaan isticmaali doonaa Gmail oo waxaan ku dhufan doonaa bottomka cas ee ay ku qoran tahay Gmail login with Gmail. waxaan ku dhufanayaa hadda Gmail-ka. Waxa ii soo bixi doonaa user-radii hore ee igu jiray computerka ama mobile-ka. Kadib haddii aanan garanayn kuwan password-koodii waxaan isticmaali doonaa mid cusub halka ay ku qoran tahay use another account. Kadib waxaan gelin doonaa boxka yar ee ii soo baxday ee halka idinka muuqda Gmail account-keygii. Hadda waxaan ku qori doonaa Gmail account-kii sida halka idinka muuqataba. waxaan gelin doonaa oo aan raacinayaa password-kii uu lahaa Gmail-kan aan hadda isticmaalayo. waana dhammaystiray waxaan ku dhufan doonaa bottomka si aan u galo login. Successful si dhammaystiran ayaynu u soo guda galnay platformkii. Hadda waxaynu ku guda jirnaa courseski platformka. waxaynu dooran doonaa course alaaliyo course-ka aan doono amba adigoo aad dooranaysaa course-ka aad rabtid si aad u dhigato. halkan sare wajahadan sare waxa kaaga soo muuqanaya platformka dhammaan course-ka ku jira oo dhan kuwaasi oo aad dhigan kartid ka alaaliye ka adigoo aad doonaysid. hoos ayaan u jiidi doonaa scroll-ka waxa iga soo baxaya koorsooyinka. haddii ay koorsooyinka halkan aanan caadi uga arkayn waxaan ku dhufan doonaa bottomka ay ku qoran tahay explore course library si aan u arko koorsooyinka faraha badan ee ku jira platformka. sidoo kale haddii aad doonaysid inaad si aragtid koorsooyin intan ka fara badan waxaad ku dhufan doontaa bottomka hoose ee ku qoran tahay load more. Okay, imika waxaan dooran doonaa course-kii aynu isdiiwaan gelin lahayn. hadda waxaan dooranayaa course-ka magaciisa loo yaqaano Advanced Graphic Design. sida marka aan course-ka ugu dhufto waxa ay soo bixi doontaa sharaxaadda course-ka iyo waxyaabaha aan ku baranayo inta aan ku guda jiro course-ka iyo content-iska aba chapter-iska uu ka kooban yahay course-ku. sidoo kale haddii aad doonaysid inaad heshid sharaxaad ku saabsan course-kan aad doonaysid inaad barato ku dhufo video-ga preview ay ku qoran tahay aba bottomka yar ay ku qoran tahay preview si aad u aragtid muuqaalka koowaad ee sharaxaya course-kan macalinka bixinaya. haddaba waxaan sameynayaa isdiiwaangelin si aan u qaato course-kan. course-kan aan qaadanayo lacagta course-ku waxay kaga qoran tahay halka aad arkaysaan oo qiimaha course-ku waa halka ku yaala. si aan isku diiwaan geliyo course-kan waxaan ku dhufan doonaa bottomka ay ku qoran tahay start learning. marka aan ku dhufto bottomka start learning waxa ii soo bixi doonaa formkii ama qaabkii lacag bixinta. lacag bixinta waxaad ku bixin doontaa afarta option ee halkan kaaga muuqda midkood ayuun baad isticmaalaysaa. adeega saad haddii aad isticmaalayso iyo adeega e-dahab iyo adeega EVC plus amba adeega PayPal oo ah credit card-iskii sida Mastercard-ka haddii aanad joogin wadanka gudihiisa. haddaba haddii aad joogto wadanka gudihiisa adeega saadka ayaan isku diiwaan gelin doonaa. waxaan ku dhufanayaa calaamadda yar ee plastic ee ku qoran tahay saad. waxa ii soo bixi doona
qaabkan lacagta u dirayo. Waxa halka idinka muuqata lacagta kooraska oo ah shilin 68,500 oo shilin ayaa ku qoran hadda. Marka waxaan u diri doonaa lambarka ku iibsada ee ku hor qoran oo ah 53,910. Si aan u diro lacagta waxaan la soo bixi doonaa mobilkayga aan ku isticmaalayo saadka. waxaan diri doonaa hadda lacagtii ayaan u diri doonaa lambarka ku iibsada. waxaan raacinayaa passwordkeygii. haddaba si loo hubiyo lacagtii aad soo dirtay laguguna sii daayo kooraska aad dalbatay, fadlan geli bogoskan yar lambarkii aad lacagta ka soo dirtay. hadda anigu waxaan gelin doonaa lambarkaygii bogoskan aan gelinayaa sida halka idinka muuqataba. haddaan gelinayaa waan geliyay lambarkii. waxaan ku dhufan doonaa markaan sidaa u geliyay lambarkii aan ka soo diray lacagta bottomka submit anigoo dhamaystiraya lacagta halka ku qoran sida ay u qoran tahay u qoraya. bottomka submit ayaan ku dhufan doonaa. hadda kooraskaygii waa la fasaxay waana la ii daayay. waxaaba ii soo baxay kooraskii aan dhigi lahaa. imika waxaan ku jiraa kooraska gudihiisii. casharkii koowaad ayaa ii soo baxay. haddii aan doonayo inaan ogaado casharaanta kooraskan ee ku jirta halkan gudihiisa, waxaan ku dhufan doonaa bottomka yar ee saddexda calaamadood ay ku qoran tahay si aan u arko chapterska kale ee uu koorasku ka kooban yahay. sidaasi ayaan ku iibsanayaa kooraska, lacagtana ku bixinayaa anigoo isticmaalay adeegga saadka. waana simple, habka aadka u fudud ayaad u isticmaalaysaa. imikana waxaan eegi doonaa qaabka lacagta loogu bixiyo inagoo adeegsanayna e-dahab. waxaan dooran doonaa inta aan dib u soo galo platformka kooras kale si aan idin tuso isdiiwaangelinta. waxaan soo gudagalay platformkii mar kale. waxaan dooranayaa kooraska QuickBook Online. waxaa ii soo baxay kooras contentiga iyo descriptionkii kooraska iyo sharaxaadii kooraska iyo waxyaabihii lagu baranayay oo dhan. waan ku qancay. aan isdiiwaangeliyo. lacagta kooraska halkan ayay iga muuqataa. waxaan ku dhufan doonaa mar labaad bottomka ay ku qoran tahay start learning. waxaan ku dhufan doonaa hadda oo aan dooranayaa e-dahab. e-dahabka markaad isticmaalaysid kaliya waxa laga doonayaa inaad halkan geliso bogoskan yar ee kuu soo baxaya lambarka aad e-dahabka ku isticmaasho. sidoo kale lacagta halkan ku qoran in ay kugu jirto akoonkaaga e-dahabka. hadda waxaan geliyay lambarka aan ku isticmaalo e-dahabka. markaan bottomka geliyo waxaan ku dhufan doonaa bottomkan koornaya kaaga muuqda. waxaa ii soo bixi doonaa foomkan halkan kaaga muuqda. foomkani waxa uu hubin doonaa qaabka aad lacagta u bixinayso. halkan waxaad gelin doontaa bogoskan passwordka aad ku isticmaasho e-dahabkaaga. pinka e-dahabkaaga ayaad halkan gelin doontaa. markaan gelino passwordka e-dahabkeena bogoskan waxaa dib laynoogu soo diri doonaa oo mobilkeena inoogu soo dhici doonta fariin ama messagekaasoo loo yaqaano OTP, one time password. hadda waxaan eegi doonaa fariintii la igu soo diray mobilkayga. fariintii way ii soo dhacday. bin ka kooban 4 nambar. dib ayaan ugu noqon doonaa computerkii. waxaan gelin doonaa 4 nambar ee mobilka la igu soo diray sirta ahaa. 4 nambar ayaan geliyay halka oo idinka arkay aan ku qoray. kadib waxaan ku dhufan doonaa bottomka ay ku qoran tahay complete payment. markaad ku dhufatid bottomka complete waxaa la hubin doonaa in lacagtaadii la diray iyo in kale. kadib waxaad ku dhufan doontaa bottomka akhtarka ah ee ay ku qoran tahay go back to your website. bottomkaasi ayaan ku dhuftay. dib waxaa hadda la igu soo celiyay kooraskii aan doonayay inaan iibsado. kadib waxaan ku dhufan doonaa meesha ay ku qoran tahay resume learning. waan ku dhuftay. waaba la ii furayba kooraskii. fududaa qaabka tigsi la isku diiwaan gelinaya. adigoo jooga gurigaaga, adigoon hawl kaa bixin, adiga oo aan tegin xafiis, adiga oo aan meel kala tegin, ayaad sidaa yaree fudud tigsi isku diiwaan gelin kartaa. haddana waxaan eegi doonaa
anigoo adeegsanaya mobile si aan uga galo platformka tixi.com. waxaan soo furi doonaa mobile browserka igu jira ee Google Chrome-ka mobile-kayga. waxaan ku qori doonaa tixi.com searching-ka mobile-ka ama URL-ka. sidiis la mid ah waxa ii soo bixi doonaa platformkii tixi.com isagoo oo leeg shaashada mobile-ka. markuu ii soo baxo platformku, talaabada koowaad aan qaadayo waxa weeyaan inaan login sameeyo. kadib waxaan ku dhufan doonaa saddexda yar calaamadood ee ku yaala koornaha qaybta midigta. markaan ku dhufto waxaan ka dooran doonaa halkaasi login. hadda waxaan ku dhuftay login, labadii option mid ayuun baan ku isticmaali doonaa, ama inaan Gmail ku isticmaalo ama inaan Facebook account-kayga ku galo. kadib waxaan dooran doonaa hadda waxa loo yaqaano Gmail account. sidiisa la mid ah ayaan soo guda galay. waxaan raadin doonaa course-ka aan doonayo inaan dhigto. hadda waxaan dooran doonaa course-ka hadda aan dul taaganahay. fingerprint ayaan dooranaya, barashada fingerprint-ka. waan ku dul dhuftay. waxaan arki doonaa course outline-kii waa halkan ku qoran iyo content-yadii iyo waxyaabihii oo dhan. kadib waxaan samayn doonaa inaan isdiiwaan geliyo. waxaan ku dhufan doonaa button-ka start anoo adeegsanaya mobile-ka. lacag bixintii baa ii soo baxday. waxaan dooran doonaa qaabkii staadka ayaan dooranaya. kadib lambarkii ayaan u diri doonaa lacagta mar kale. kadibna lambarkii aan ka soo diray lacagta ayaan halkan dib u gelinaya. kadibna waxaan ku dhufan doonaa bottom-ka ay ku qoran tahay submit. ku dhuftay. markaan intaas sameeyo waxaa la ii furayba course-kii. hadda waan dhiganayaa. dahabkana sidii aynu hore u soo sameynay si la mid ah ayuunbaa dib u samaynaysaa. haddii asaadka isticmaalaysidna qaabkaas aad u isticmaali doontaa. adeegyada kale ee ku qoran EVC-gana sidaas si la mid ah ayuunbaad iyagana u isticmaali doontaa. ka mid noqo ardayda tirada badan ee wax ka dhigata platformka waxbarasho ee tixi.com. aad baad u mahadsan tahay. fadlan la wadaag muuqaalkan asxaabtaada iyo dadka jecel waxbarashada si ay wax uga bartaan platformkayga Tixi.